dibadbaxan ay sameeyeen Soomaalida ku nool magaalada Jakarta ee wadanka Indonesia ayaa ku soo beegmaya xilli wadankaasi uu ku jiro xayiraadaha dhanka COVID-19 taas oo aan suurtagal ahayn in dad badan meel isugu yimaadaan. hase yeeshee dibadbaxan waxaa goobjoog ahaa Maxamed Cali Daha waxa uu weydiiyay tirada mudaharadayaasha iyo waliba halka ay ku mudaharaadeen. Ibrahimow Soomaali badan baa ku mudaharaaday UNHCR horteeda waa dad kor u dhaafaya 100 marka ilaa bishan March bartamaheedii ilaa hadda way mudaharaadayeen inkastoo marka dambaysa ay sii yaraanayeen oo cadaadis ka imanay dhinaca UN-ta iyo booliska wadankan oo waa ogtahay wadankan wuxuu ku jiraa wali lockdown oo coronavirus-kii marka Soomaaliduna waxay jabisay sharcigii kala fogaanshaha maadaama mudaharaad ku sameeyeen xarunta UNHCR ee magaalada Jakarta horteeda. Maxamed waxyaabaha ay ka caroodeen maxaa kamid ah oo dibadbaxan ay u dhigayaan Soomaalida Jakarta joogta maxay salugeen? Ibrahimow saddex arrimood baad moodaa inay Soomaalidu inta badan ay xoog saarayaan inay ka mudaharaadeen. Soomaalidan waxa jirta Soomaali badan oo soo gashay wadankan xilliyo hore 2013 oo inta safaarada qaar la siiyay iyo lagu aamuso lagu dhageystay oo Mareykanku ka yahay iyo wadanka New Zealand. Soomaalidaasi waxay ka cabanayaan iyagoo helay resettlement ama dib u dejin in kiisaskoodii ilaa hadda aan wax process wax update aan lagu samayn oo kiisaskoodii laga aamusay. taa waa koobay ka tahay oo waxay ka cabanayaan in kiisaskoodii meesha marayaan ay ogaadaan iyo waxa loo haysto. tan labaad waxa weeyaan dhinacii dhaqaalaha oo waxa jirta de familyo iyo hooyooyin caruur iyo dad xanuunsanayo lacag la siiyo oo lacagihii qaarkood laga yar goostay ama la yareeyay oo ka cabanaya lacagahooda sababta loo goostay sababta loo yareeyay iyo baa jirta dad ka cabanaya caafimaadkii oo UNHCR caafimaadka iyada bixin jirtay oo Soomaalida hadii qof xanuunsado caafimaadka dhakhtarada iyaga geyn jiray marka caafimaadka gaabis ku yimi oo ay cagajiid dhinaca UNHCR iyo CWS barkan ayaa horta yimi oo ay iyaguna oo Soomaali badan oo dad emergency iyagoo xaaladooda serious tahay ay telefoonadii ku dhageysteen. lacagahan coronavirus-ka loogu talagalay ee shacabka reer Indonesia lagu caawiyo Soomaalidu soo kama mid aha dadka la siiya. Soomaalidu qayb waa ka yihiin lacagta loogu talagalay coronaha ee wadanka ku nool way qaateen 3 bilood way qaateen oo sanadkii la soo dhaafay laakiin sanadkan 2021 ka may qaadan oo waxa weeyaan waxaba koow ka ah mudaharaadkan maadaama lacagta coronaha laga jiray oo dadkii shacabka ahay wadanka Indonesia lacagta coronaha qaadanaya UNHCR ay lacagta coronaha ay joojisay iyo ku andacoonayeen UNHCR in dhaqaalihii soo gali jiray iyo budgetkoodii uu yar yahay marka mudaharaadkan marka ay Soomaalidu sameeyeen ayaa waxay hadda ogolaadeen UNHCR inay siiyaan lacagtii coronavirus-ka oo isugu daraan muddo 2 bilood ah oo tusaale ahaan bisha April iyo May ay dhaheen waa isugu kindaraynaa sidii hore u sameyn jireen tusaale ahaan sanadkii hore kale way isku soo dari jireen 2 bilood mar ilaa sanadkan waxay u soo direen ma jirto Soomaalidii marka Soomaalidii oo coronihii ku soo laba jacleeyay wadankan oo Soomaali badan oo guryihii fadhiyaan oo lockdown ay ku jiraan iyo dhaqaale aanay ka helin dhinaca UNHCR iyo lacagtii coronaha ay UNHCR goysay iyo dibadejintii iyo caafimaadkii oo gaabis galay ayaa keenay horta inay mudaharaadaan taasaana sababtay in Soomaali badani ay jabiyaan sharciga u yaallay wadanka Indonesia oo ahaa in la kala fogaanayo oo aan dadku isu iman. Soomaalida ku dhaqan wadanka Indonesia ayaa ah kuwa ka diiwaan gashan hay'adda qaxootiga UNHCR kuwaas oo doonaya inay helaan dib u dejin wadan kale oo saddexaad sidoo kale kuwa tahriibayaal ah ayaa halkaasi iska degay halka kuwa kalena ay yihiin arday wax ka bartay jaamacadaha wadankaasi.